السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله doorashooyinka dalkani Kenya waxay marayaan meel xasaasi ah. Siyaasiyiinta kala duwan ayaa ku jira dadaal dheer oo ay ku haranayaan shacbiyad ballaaran si ay uga soo baxaan tartamada kuraasta kala duwan ee lagu hardami doono. Waxaan midcsan doonaa siyaasi daayar oo ruwacada magaciisa waa Cabdiraxmaan Mahad Aadan wuxuu u sharaxan yahay inuu ku guuleysto kursiga MCA-ga Huluuq Award isagoo si uu kasbashada qalbiyada codbixiyaasha deegaanka guud ahaan ee 7 bishan wuxuu kulan xog wareysi kula qaatay xiddig hotel ku yaala magaalada Garissa dhalinta ka soo jeeda deegaanka Huluuq iyadoo socdaal qoto dheer uu ku sii xoojinayo ololeysa doorashada uu ku mari doono dhammaan goobaha uu kursigiisa yaalo. Mid ka mid ah dhalinta halkaasi isugu timid ayaa sheegay in aad u taageersan yihiin mudanaha ayna u soo qaateen iskuna raaceen inuu tartamo kursigani. insha Allah meeshan waxaan u soo istaagay muhiimadan inaan ka hadalno taas oo ah mid aan qabyaalad ahayn oo siyaasi waxaan wadnaa ninka Cabdiraxmaan ninka waxa weeyaan horta nin aad loo aqoono zaid loo garanayo weeyaan dhalinyaronimadiisa iyo wuxuu qooni jiray meeshaas asagoo siyaasi ku jirin asagoo waxba ka ahayn dhalinyaro iska arday ma fahamtay haddana wuxuu diyaar u yahay inuu hawshiisa meesha ka sii wato howlihii qabyada ka ahayn inuu dhammaystiro wuxuu diyaar u yahay inuu mataqaanaa magaaladaas waxyaalo fara badan ka bedelo ayuu diyaar u yahay aniga maanta saarno fiirti meeshan dad fara badan oo waxa weeyaan kala qabiil ah ma socono tan ma aha siyaasad codkay waxa weeyaan siyaasad ogaadeen talamugo samawada inta weeyaan markii yaa liis dhihin maanta qabyaalad iyo waxaas loo socdaa ee waxaan u soconaa kooro waxa weeyaan xashintaas yiriska oo jeebkeena ku jirto ayuu ninka naga codsaday ninka wax kale oo naga codsaday maanta ma laha daamidaas ka reebano waxa kale oo qabanayna aniga wax kale wax nooga ka rabno ma lahaan waxaan ka rabno waxa weeyaan inaan ninkan meel gaarsiino insha Allah waa la qaaday Soomaa insha Allah ninkan asaga waan qaaday inaad ila qaadaan baa ugu dambeyn Mr. Cabdiraxmaan oo halkaas ka hadlay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa sida tan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنت مسؤول مادين دمانتين وماتنتين سوى جبتين بإماشينا شكرا كل جن. مقعيقة دان تفاين سكب بحياني وحليل عبد الرحمن مهد آدن ومقعدير إنجينيا عربلة وانا الناس أوجي كلا كل غيدا هلوقو odayaasha Garis kulligood aqoon ay u leeyihiin Arible marka waxaan ahay musharax u taagan kursiga MCA Huluuq Award si walaalkay u sheegay muddo ka hor Huluuq ayaan tagay dhalinyarada Huluuq si fiican ay isu dhaweeyeen way maadsan yihiin inta maanta meeshan joogtana way maadsan yihiin si ay isu dhaweyseen inta ayaga xagga iga soo dhaweeyeen Huluuq ayagana way maadsan yihiin dhammaan ka hadlo Huluuqo danta ay u qasabtay inaan u soo istaago kursiga asaga waxa waaye anigoo ah xog ogaal ka soo jeeda beeshaas magaalada Huluuqo kuna dhashay magaalada ayada ka soo waxbartay madarasadayda waxbarashada dugsiga waxbarashada iskuulka xagga waxa dhammaan xagga aan ka soo jeedaa waxaan ahay nin ku waxbartay magaalada ida marka waxaan rabaa in ka codsanaa dhammaan dhalinyarada maanta meesha ku imaatay inta maanta goobjoogna u ahayn halkan duruuf la ajligeed u imaan weyday ama Huluuqa ku sugan dhammaantiin waxaan rabaa inaad garab istaagtaan codkiina aad isiisaan marka arrintaas ayaan ka codsanaa dhammaan way wada raacdeen marka Huluuq horta waa magaalo marka faahfaahin ka bixiyo Huluuq ahaan waa magaalo weyn population leh magaalo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya la wadaagto labada dhinacba waay magaalo dhaqaalaheeda fiican waay marka waxay u baahan tahay qof daneeya haddii runta ka hadal haddii runta la isku sheego Huluuq waxa loo baahan yahay dhalinyaro oo meesha u dhashay oo Huluuq daneyn kara fahmi kara cabashada ummadda meeshaas ka soo jeeda aniga ku jiro fahmi kara matali kara dadka baahidooda noqon kara mid u adeega dadka shacabka Huluuqa ku nool soo qabiil ama qabyaalad waxaas isticmaalayeen ku dooro Cabdiraxmaan daacadnimo hufnaan horumar iyo hiigsi dhabow baan ku leenahay. isma ogi
kala maqnay taariikh meel ku qoran weeye maanta ماشي دارين مثلات كوي أيايب مودين ما انتو كلنا مدحان فورا